iyadoo maanta lagu jiro maalintii shanaad ee xisbiga mucaaradka wadani oo lahaa tartanka isku soo baxyada ololaha doorashooyinka Soomaaliland ee guud ahaanba magaalooyinka iyo degmooyinka dalka Soomaaliland ka kooban yahay ayaa xisbiga mucaaradka wadani maanta waxa uu bedelay inuu xafiisyo cusub gudaha magaalada Boorama ka furto sidoo kalena uu la wareego xafiisyo hore looga taageeri jiray xisbiga talada dalka iyo kulmiye oo haatan dadkii mas'uuliyadda xafiisyadaasi ahayn jiray iyo taageerayaashiiba ay xisbiga mucaaradka wadani taageero mug iyo miisaan la u muujiyeen xafiisyadiina ay ku wareejiyeen xisbiga isbedel doonka ee wadani ururka Boorama Brothers oo xisbiga kulmiye ka tirsaneen waxaan maanta bisha 4 waxaan isla garanay in aanu xisbigii kulmiye ka tanaasulno kuna biirno xisbiga wadani marka hore ka tirsaneen xisbiga kulmiye kuna soo biirnay xisbiga wadani intoo sabtiya oo bisha 4 waxaan go'aan ku gaadhnay inaan xisbigii kulmiye ee aan ka tirsanaan jirnay ka soo digarogno oo ni soo digarogno xisbiga wadani anigoo marinaya astaantii xisbiga wadani qorgaabo dhan waxaan bariga waxaan u diyaarnahay inaan mug iyo miisaanba siino wadani waxaan nahay wadani mas'uuliyiinta heer gobol heer degmo iyo guud ahaanba madaxda kaambeynka ee kala duwan ee xisbiga mucaaradka wadani oo maanta xafiisyadaasi la wareegay qaar kalena xadhiga ka jiray oo 4 xaafadood ee magaalada Boorama ka kooban tahay gudaheega xafiisyo ka furay ayaa madalihii kala duwanaa ee xafiisyadaasi ku yaaleen waxa ay ka jeediyeen hadaladan iskan markii Boorama Brothers weeyaan wuxuu ka tirsanaa markii hore xisbiga kulmiye ka tirsanaa inamada adarkaysaani waxa ay si nadiif ah isaga saareen garamaanti xisbiga kulmiye iyagoo la bistay garamaanta xisbiga isbedel doonka ee wadani waana kuwa garamaantoodii aanu gacanta ku hayno waa xafiiskii saddexaad ee saaka sidaas oo kale u siibay garamaanta 7 sanadood buu xisbiga kulmiye xilka hayay waxaad hore uga weydeen maanta minad ka heshaan ma u malaynaysaa halkuu dadkeenii Boorama yaalay kala maraya qabiil buu kala maraya eexu kala maraya kala qaad buu kala maraya kala faquuq buu kala maraya maanta waxay ku soo jeesteen inay guryihii dariska isku ahaa dagaal isaga hor keenaan waxaase maanta ka reeyay dalinta maanta halka isugu timiday ee iyagoon dustus la sameeynin iyagoon la xudxudanin iyagoon hoosta loo marin gartay inay mariyaan calankii kulmiye meesha ka saaraan oo ka wadani taagan dadweynaha sharafta leh ee xaafadan kala ee maanta codkoodii iyo ragnimadoodii iyo kaarkoodii baa noo horay aad baan idinku hambalyeelnaa hambal iyo talow waa 4 xafiis waxa maanta soo diga rogtay ee gartay aayahooda iyo mustaqbalkooda iyo dantooda halka ay ku jirto aad iyo aad baad u mahadsantihiin waxa la yiraahdaa hafaane fagal dameer fardaha ma la borotama harcad baa laga tagayaa harcad dhammaantiin waxay leeyahay waxay noo balana maalinta 13 bisha inaad fartiina ugu aartaan shacabka waa Axmed Orid magaalada Boorama.